Assalaamu calaykum asxaabta rafta lagu soo dhawaada markale muuqaalkeeni maanta waxaan ka hadli doonaa 10 arrimood ama 10 cashar kaasoo dadka intooda badan ay ogaadaan ama ay bartaan xilliga dambe ee ka mid ah waqtigooda ama cimrigooda 10kan arrimood waxaa la sheegaa inay dadka intooda badan ay gartaan ama ay ogaadaan xilli dambe oo ka mid ah cimrigooda markaasna ay bilaabaan inay ka shalaayaan si aanan ugu mid noqonin dadkaasi waa inaan ogaanaa mise aan baranaa 10kan cashar in la noolaado shalayta la'aan waa wax qof kasta jecel yahay balse markii loo imaado dhanka run ahaantii aad ay u adag tahay arrintaasi sidaan la socono waxaa jiro arrimo ama waxyaabo la rabay in la ogaado qofku uu ogaado xilli hore oo ka mid ah cimrigiisa balse ogaanayo xilli dambe ka mid ah arrimahan 10kan arrin oo dadka intooda badan ay ogaadaan xilliga dambe waxaa ka mid ah mid ugu horeyso inuu qofku ku faraxsanaado noloshiisa qofku inuu ku faraxsanaado nolosha qaabku u nool yahay run ahaantii inuu qof kasta wuxuu jecel yahay inuu ku noolaado nolol farxad leh in qof kasta ku faraxsanaado noloshiisii waa arrin aad afka markii laga sheego aad u fudud balse sidaa darteed ay suuragal u ahayn inuu qof kasta ku faraxsanaado noloshiisa iyo wixii soo maro mid labaad deganaansho la'aanta ama welwelka ama cabsida in lagu noolaado welwel iyo cabsi waa arrimo inta badan dadka soo maro xilliga la yahay qofku uu yahay dhalinyarada xilli qofku uu dhalinyarada yahay waxaa soo maro waxyaabo badan qofku ka cabsanayo mustaqbalka inuu sameysto xiriir wanaagsan ama waxbarashadiisu ayuu ka welwelaya ama ka cabsanaya taasi ayaa keenaysa marka qofka inuu ku sugnaado xaalad deganaansho la'aan iyo welwel ah arrintaasi dadka intooda badan waxay gartaan xilli dambe inaysan sax ahayn marka iska ilaali inaad ku noolaatid welwel ama cabsi taasi oo la xiriirto mustaqbalkaada midda saddexaad go'aan qaadashada oo dib loo dhigo waxaa la sheegaa dadka intooda badan inay go'aan qaadashada dib ay u dhigaan marar badan dad badan waxay ku adag inay go'aan qaataan sababtoo ah waxay ka baqayaan inay sameeyaan wax cusub ama tallaabo cusub ay qaadaan taasoo laga yaabo inay tahay midii noloshooda wax ka bedeli lahayd waxaa ka mid ah inuu qofka wanaagsan uu ku fikiro balse arrintan inuu ku dhaqaaqo ay ku adkaato sidaa darteed ayaa la sheegaa inay go'aanka dib loo dhigo ay ka mid tahay waxyaabaha qofka gadaal u dhigayo midda afraad muhiimadda oo la fahmin qofkan fahmin waxyaabaha muhiimadda u leh dad badan waxay leeyihiin saaxiibo fara badan kuwaasoo ay noloshooda muhiim u ahayn isla markaasna waxay ilaawaan dadka noloshooda ugu qaalisan sida waalidiinta iyo xaasaskooda balse waxay ka shalayaan markii ay waayaan isla markaasna waxay jeclaan lahayn inay mar dambe waqtigaas dib loo soo celiyo si ay ula qaataan waqti wanaagsan ama farxad leh dadka qaaliga agtooda ka midda shanaad sameynta xiriir qaylo iyo buug ku dhisan qofkoo sameeyo xiriir ku dhisan qaylo iyo buug waxaa jira dad badan oo arrimo kala duwan darteeda ugu sugan xiriir qofkoo rabin inuu lumiyo qof noloshiisii ka mid ah sidaa darteed ayay dadku waxay ku sugnaanayaan xiriiro ka samaysan qaylo iyo buug in la sameeyo xiriir qaylo iyo buug ku dhisan keli ah waxaa laga faa'iidaa xanuuno maskaxeed iyo kuwa qofka farxadda ka qaadayo intaad xiriir noocaas ah waqtigaada ku dhumin lahayd waxaa wanaagsan inaad ka baxdo si aad fursad u siiso xiriir farxad iyo reyn ku dhisan midda lixaad ka fikirka wax dadka kale ay ka aaminsan yihiin qofkoo ka fikiro wax dadka kale ay ka aaminsan yihiin dad fara badan waxay ka fikiraan wax dadka kale ay ka aaminsan yihiin arrintaas ayay ka walwalaan oo murug iyo walwal ku abuurto balse looma baahno qofka inuu maxaa la dhihi jiray uu ka fikiro wax dadka kale ay ka aaminsan yihiin sababtoo ah kastoo aad samaysid dadka dhan inay ku jeclaadaan taasi ma dhiciso dadka intooda badan dad badan ayaa laga yaabaa inay horumarka ama wax sameynayso ay ka xun yihiin sidaa darteed ha ka sugin dadka dhan inay si wanaagsan ay meelaha ku arkaan marka samee waxyaabaha horumarkaada ku jiro ha kana sugin qof kale midda toddobaad raadinta lacag beddelkii cilmiga ama aqoonta dadka qaar ayaa iskaga tago ama iska dhaafo waxbarashadooda ayagoo raadinaya lacag arrintaasi dad badan waxay ogaadaan xilli dambe inaysan sax ahayn sababtoo ah cilmiga ayaa keeno lacagta ma keento cilmiga marka waxaa loo baahan yahay qofka inuu cilmiga raadiyo mise aqoonta raadiyo in beddelka uu raadin lahaa lacago midda sideedaad da'da dad badan waxay aaminsan yihiin inay waxba samaysan karin ama aysan qabsan karin
sababtoo ah da'dooda darteed, khaasatan haweenka. Taasi sax maahan. Waqtiga adiga ayaa iska leh, adiga ayuu khaas ku yahay. Marka xilli kasta oo aad minaha rabto waad ka faa'iideysan kartaa, ama cimri kasta oo aad jirto waad ugu faa'iideysan kartaa wax naftaada rabto. Marka ha ka sugin, ha ka baqin cimrigaada ama waqti da'da darteeda. Wax kasta oo aad naftaada jeceshahay isku day inaad samaysato. Mid sagaalaad, caawinaad weydiisiga. Qofka oo caawinaad weydiisan qof kale, run ahaantii waa arrin wanaagsan inuu qofku isku filnaado uusan weydiisan qof kale waxba. Balse mararka qaar waxaa jirto aadan ka maarmin inaad qof wax weydiisato. Marka waxaa loo baahan yahay xilliga aadan ka maarmin inaad weydiisato garab qofka ugu habboon ee aad leedahay garab ayuu kugu siin karaa arrintaas. Dad badan ayaa jiro jecel inay dadka caawiyaan. Marka isku day xilliga aad garabka u baahan tahay inaad weydiisato dadka ugu muhiimsan ama dadka ugu habboon oo aad leedahay garab ayaad ka heli kartaa. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad garab qof aad weydiisan weyso darteed arrimo badan ay kaaga halaabaan, taasoo mustaqbalkaada qusayso. Midda tobnaad, qofka oo in badan safrin, qofka oo in badan socdaalin, qofkan socdaalin ama safrin. Faa'iidooyinka safarka waxaa ka mid ah inuu qofka barto dhaqamo kala duwan, bulshooyin kala duwan, iyo luqado kala duwan. Taasi waxay kaaga caawinaysaa inaad ogaatid dhaqamada dunida ka jiro. Sidoo kale waxay kaa caawinaysaa inaad fahanto aad u mahadceliso inaad fahanto minaha dhaqamada faraha badan oo bulshada ka jiro, adduunka ka jiro. Sidaa darteed ayay u wanaagsan tahay inuu qofka safro, inuu qofka socdaal galo, inaad meel kasta ku noolaan kartid, luqado badan iyo dhaqamo badanna aad baratid. Mowduucani maanta halka ayuu ku egyahay. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, la wadaag asxaabtaada, furo gambaleelka si aysan ku dhaafin muuqaalada dhiirigelintan soo gelino. aad ayaad ugu mahadsantihiin dhammaantiin daawashada wacan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.